ciidamada Commandos-ka Soomaaliya ee danab oo taageero ka helaya ciidamo Mareykan ah ayaa saqdii dhexe xalay howlgal qorsheysan oo duqeyn ah ka fuliyay duleedka magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe. ciidamada Commandos-ka Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa si toos ah u bartilmaameedsaday xarunta idaacadda ku hadasha afka maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. weerarka ayaa ka koobnaa duqeyn iyo weerar dhinaca dhulka ah iyagoona ciidamada danab iyo kuwa Mareykanka ay si toos ah u bartilmaameedsadeen xarunta idaacadda Andalus oo ku hadasha afka maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ali Maxamed Maxamuud Bagmadow oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in xalay saqdi dhexe ay ciidamada Commandos-ka Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay weerar duqeyn iyo mid dagaal ka fuliyeen gudaha magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe. General Bagmadow waxa uu sheegay in weerarka uu si gaar ah uga dhacay xarunta idaacadda Andalus oo ku hadasha afka maleeshiyada Al-Shabaab. xilliga uu weerarka dhacay ayuu sheegay in ay gudaha ku sugnaayeen horjoogayaal iyo wariyaal ka tirsan maleeshiyada kooxda argagixisada Al-Shabaab. taliye Bagmadow ayaa tilmaamay qasaaraha rasmiga ah ee duqeynta lagu gaarsiiyay kooxda argagixisada Al-Shabaab ilaa 15 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab iyo 4 wariyaal oo ka mid ah wariyaasha Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerarka duqeynta ah. qalabkii idaacadda Andalus ee Al-Shabaab ayaa la xaqiijiyay in dhammaan lagu burburiyay weerarka duqeynta iyo dagaalka. weerarka oo ka koobnaa duqeyn iyo mid dagaal ayaa gabi ahaanba waxaa lagu burburiyay idaacadda Andalus saldhiggii ay ku lahayd gudaha magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe.